السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبض ويدا وضيح كسروا جنرال كافتان برودكشن وأنا تضبيه طبعا بشلحات لبكون يلا بعتن سنو هذا dadku waxay iga daawanayaan Facebook si live dadka qaarkoodna waxay ka fiirsan doonaan dhinaca YouTube-ka iyadoo ay dadweynuhu ka daawadaan aftahan production oo ah channel baahiya barnaamijyada aan soo gudbiyo anigoo Cabdilaahi Balwaana soo dhawaada dhabaantiin waqtigu ha idin wacnaado qodobada intaan u guda galin waxaan rabaa inaan aad u soo dhaweeyo dadweynaha sharafta badan ee qiimaha leh meel kasta ay joogaan waa shacabkayga waana shacab aan ku faano waana dadweyne aad u qiimo badan meel walba oo joogtaan soo dhawaada salaantiina ka qiimo badan in aan marka hore ku degdego qodobada barnaamijka soo dhaweyn aad u weyn ayaan idin hayaa dhammaantiin soo dhawaada qodobada ugu dambeeya ee barnaamijku uu xambaarsan yahay waa marxaladda dalka Soomaaliya siyaasaddu halka ay marayso si shargareeya koromka buuxiya inta aan qodobada u guda galin koromka buuxiya qof waliba ha shargareeyo maxaa soo kordhay laba sir oo aad u culus ayaan baahi doonaa laba arrin oo sir ah arrinta koowaad ee sirta ah waa dhinaca garoonka diyaaradaha Muqdisho oo loogu talagalay Cabdi Xaashi in lagu curyaamiyo sirta labaad oo caawa baahi doona ayaa waxay tahay xogaga mucaaradka waxay samaysteen dalad la yiraahdo isbedel doonka siyaasadda Soomaaliya boqolkiiba 80 shabaq culus ayaa u yaala shabaqooduna wuxuu ku salaysan yahay mabda' siyaasadeedka rasmiga ah ee ayatiinka mustaqbalka dalkeena muxuu ku saabsan yahay shabaqa xogaga mucaaradkana waan ku soo gudbi doonaa waxaan kaloo ku hayaa isla markaana aan barnaamijka kugu soo gudbi doonaa hadduu alla idmo qodobada ugu dambeeya ee dhinaca abaabulka xogaga mucaaradka madaxweyne farmaajo oo dhinaca garoonka isna uu doonayo inuu ku sameeyo arrin sira oo aan rabo inaan idinla wadaago waxaan kaloo barnaamijka idin kugu hayaa oo aad maqli doontaan dhowr arrin oo aan filayo dadku inay ku baraarugi doonaan iyadoo aan filayo in barnaamijkan uu in badan uu taaban doono macluumaadyo aan isla yahay aad baa loogu riyaaqayaa qodobada sida gaarka uu iftimi doono waxa kamid ah number 1 Cabdi Xaashi safarkiisii ahaa inuu gobolada wadanka uu tago waxa loo diyaariyay shirqoolka marka Cabdi Xaashi loogu talagalay ayaa noqonaya kii ugu adkaa abid ay dawladda farmaajo ay soo bandhigto wuxuuna noqonayaa shirqool culayskiisa leh loona baahan yahay ummadda Soomaaliyeed inay aragto dadkuna ay ku baraarugaan waa shirqool Cabdi Xaashi loogu talagalay madaxweyne farmaajo markuu arkay culayskaasi Cabdi Xaashina warbixin ku saabsan ayaan idin hayaa sidoo kale warbixinada barnaamijka sida gaarka aan ugu eegi doonana waxa qayb ka noqonaya hoteelada Muqdisho xilligan aan kula hadlayo caawa iyo waliba saacadaha iminku barnaamijku socdaba waxyaabaha ka soconaya waxa kamid ah boorso lacaga uu wado ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka waa ninka la yiraahdo Mahdi Guuleed wuxuu tirakoob ku sameeynaya oo abaabulaya oo lacaga far badan oo duldhigaya senatarada dalka si xilka looga qaado Cabdi Xaashi inta aan la gaarin xilliga uu doonayo in uu farmaajo uu sameeyo barnaamij farmaajo lid ku ah waxa la doonayaa in xilka qaadis lagu sameeyo lacagihii waxay yaalaan hoteelada magaalada Muqdisho Cabdi Xaashi iyo shabaqa loo dhiganayana waan ku iftiimi doonaa hadduu alla idmo waxaan kaloo barnaamijka idin kugu hayaa macluumaadada ugu dambeeya ee dhinaca isbedelka markuu yimid oo la ogaaday in xaaladdu meel walba ay culays oo ka yimid la garowsaday in marxaladdu ay marayso meesha ugu adkayd la ogaaday farmaajo in albaabadii ka soo xirmeen oo dhinacii maamul goboleedyadana aad ogtihiin culayska ka taagan la waayay mabdii ku salaysnaa soo jiiditaankii la doonayay in la soo jiido ninka la yiraahdo Axmed Madoobe waxa la damacsanaa in hataa shirqool loo sameeyo qaab kasta loo abaabulo oo gacanta lagu dhigo Saciid Cabdilaahi Dari marxaladdu aad bay xagga u adkayd waxaan ku hayaa marka warbixinta ugu dambaysa ee ku salaysan hawshii maamul goboleedyada iyo waliba dawladda federaalka Soomaaliya dhinac waxa diyaar garoobaya mucaaradka dawladda oo dhameystiran waxay diyaarsadeen sahay walba iyo dhan walba waxay caawa ogolaadeen marka inaan baahiyo wixii aan muddada dheer ummadeeda Soomaaliyeed aan u tirakoobayo oo u soo kokoobayay caawa waxay yiraahdeen dadka shaaca uga qaad si ay dadka u arkaan marxaladda rasmiga ee dalku marayo waxa la bilaabay waxay sameyn jireen farmaajo iyo khayri lacag fara badan ayaa la keenay Muqdisho mucaaradkana gacanta ku haya nin waliba oo ka tirsan nabar iyo naxdin waxa lagu iibsanayaa inta ay iyagu dadka ku iibsan jireen sargaalka ugu sarreeya ciidanka xoogga dalka ninka la yiraahdo Odawa Yuusuf Raage waxa la duldhigay adduun lacageed oo gaaraya 7 milyan ilaa iyo 15 milyan oo dollarka Mareykanka ah hadduu marka uu Odawa Yuusuf Raage uu ogolaado sida ay doonayaan ninka la yiraahdo xogaga mucaaradka waa la iibinayaa waxa kaloo la duldhigay adduun lacageed dhinaca nabad sugidda dawladda oo runtii marka laga reebo Fahad Yaasiin sargaal walba oo nabad sugidda kamida oo keena sirta dawladda farmaajo waxa la siinayaa 5 milyan waxa bilaabatay marka dagaalkii tartanka xogaga mucaaradka ay kula tartamayeen nabar iyo naxdin lacag
waxaa la jibin doonaa marka iskoorka lacageed ay marka hore dadka ku maamuli jireen waxaa sidoo kale la iibin doonaa qof waliba oo sir dowladda ku saabsan haya qof waliba oo kaalin ka qaadan kara dhabar jibinta iyadoo oo la soo warinayo xogta ku saabsan sida dhaqdhaqaaqa uu yahay isla caawa waxaa la keenay mabda' siyaasadeedka ku aadan dhinaca garoonka diyaaradaha muqdisho oo inta badan markii hore sirtooda ay adkeyd si loo helo waxaa lagu guulaysta marka taana in la qabto waxaan caawa gudbi doonaa dhammaan xogag sir ah oo aan filayo dadku in ay si weyn uga maqsuudi doonaan kooramkana waa buuxaa soo dhawaada madaxweyne shigshigaaye shigshigow farmaajo sheekadiisana waan bilaabi doonaa madaxweynihii ugu shigshigka badnaa af soomaaliga aanan aqoonna waan ka sheekayn doonaa caawa tii xumeed ayuu dhigay haddaad shalay ogeydeen sodogtay haddaad ogaan jirteen caawa sodogtay maaha waa ka duwan tahay haddaad arki jirteen madaxweynihii oo magaca sodohdii gafay caawa waa ka daran tahay sheekadii weligay waxaan maqal ayuu caawa sameeyey waxay qayb ka tahay waxaan doonayo dadku inay ogaadaan horta waa madaxweynihii ugu horreeyo afkiisa isku ammaana farmaajo ka hor lama arki jiray madaxweyne is ammaanaya waa madaxweynihii ugu horreeyey oo afkiisa isku ammaana iskuna tilmaamay inuu yahay wadani weligay madaxweyne naftiisa ammaanaya farmaajo ka hor ma arag weligay madaxweyne is ammaanaya isaga ka hor ma arkin laakiin caawa waxaan doonayaa isla wuxuu isku ammaanay ayaan ka dabageyn doonaa si ay dadweynuhu u ogaadaan madaxweyne farmaajo wuxuu yidhi wadani aan aniga ahayn ma jiro wuxuuna noo sheegay isaga ka hor in wadaninimadii laga baqi jiray asagana uu yahay wadani dhalay oo libaaxa wadaniyada dalkana aad u yaqaana macalinka shigshigaan ka bilaabi doonaa kadib aan warbixinada idin akrinaya farmaajo xoogaa karbaashaya sii shargaray waxaan rabaa marka madaxweynuhu wuxuu yidhi aniga ayaa ugu horreeyey oo wadaninimada keenay wuxuu noo sheegay isaga inuu yahay wadaniga keliya wuxuu noo sheegay isaga ka hor in wadanimada laga baqi jiray isweydiintu waxay tahay marka madaxweyne anigu dood kama qabo inaad wadani tahay iska ahaw laakiin weligay ma maqal wadani aan aqoonin xilliga xorriyadda laakiin weligay ma maqal wadani aan aqoonin xilliga xorriyadda la qaatay walaalayaal miskiine sanadii 5 bilood ka hor waa laga baqi jiray wadaninimada iyo inaad itiraado 30 sano ayay Soomaaliya xorriyad qaadatay farmaajo usba keenayso labaan mid ka doonaya marka haddaad tahay wadani sheeg xilliga Soomaaliya ee xorriyadda qaadatay waxaan rabaa marka Soomaalidu inay ogaato farmaajo wax yar ka daba geynaya kadib ayaan gudageli doonaa mowduuca barnaamijyadayda oo runtii xiiso leh soo dhawaada sii shargareeya madaxweyne marka hore is amaanba waxaad tiraahdaa wadani aniga ka hor waa laga cabsan jiray waxaan hubaa hal sano iyo bar ka hor maxaad hubtaa iigu celi halkaa waxaan hubaa hal sano iyo bar ka hor waxaad hubtaa hal sano iyo bar ka hor hee wax wadaniyad ka hadlaaya waa yaraayeen waa laga baqaaya wadaniyadda waa laga baqi jiray farmaajo ka hor wadaniyadda waa laga baqi jiray farmaajo waa nin wadani ah waa nin aan caadi ahayn dalka iyo dadkana horumar u gaadhsiiyey ma xumo ee farmaajo sanad ka hor adiga intaadan imaan wadanimada waa laga baqi jiray adaa marka su-aal ku weydiinaya Soomaaliya xorriyaddeeda meeqa ka soo wareegtay ilaan adaa yiri wadaniyadda anaa bilaabay farmaajo Soomaaliya xorriyaddeeda imisa ka soo wareegtay xorriyadda markaan qaadanayna waxaa laga joogaa 30 sano soo socda 2020 sanadkan ku jiro miskiine marka aniga ka hor wadanimada waa laga baqi jiray anaa Soomaalida wadaniyad baray 30 sano ayaana laga joogaa xorriyadda ma iskeenay asagan ka rabaa marka iyo cidda taageersan bal inay iswaafajiyaan aniga ka hor wadaniyadda waa laga baqi jiray anigana waxaan ahay wadanigii ugu horreeyay Soomaaliya madaxweynihii ugu horreeyay wadaniga ahaa waa aniga haddana ma aqaan xilligii Soomaaliya xorriyadda qaadatay bal ilaahay baan idinku dhaariyay iswaafajiya madaxweyne igu cali adiga ka hor wadaniyadda hee waxaan hubaa hal sano iyo bar ka hor hee wax wadaniyad ka hadlaaya waa yaraayeen waa laga baqaaya wadaniyad ho ma xuma adaa bilaabay marka wadaniyadda ma xuma ii sheeg Soomaaliya goormay xorriyadda qaadatay xorriyadda markaan qaadanayna waxaa laga joogaa 30 sano soo socda 2020 sanadkan ku jiro waa ka madaxweynihii wadaniga ahaa isagaa istoogtay marka meel idhi Soomaalida kala qubquban inuu dhaxan doonayaa farmaajo caawa haddaad qosli weysaan mar dambe muuqaalkayga ha daawan waxaan rabaa farmaajo inaan xujeeyo farmaajo haddaad tahay madaxweynihii Soomaaliya waxaad tiraahdaa dadka kala qubquban kala qabsan yihiin Soomaalida kala qubquban inaad tirahdaan doonaya farmaajo Soomaalida kala qubquban intaas kaliya ka doonaya kala qabsan yihiin waxaan af Soomaali maaha madaxweyne kala qubqub maaha dadka kala qubquban kala qabsan yihiin isma keenayso ma xumo
waa ku soo noqonaya qaybta gafgafka madaxweynaha talada dalka hayo wuxuu yiri arrin u baahan in ay Soomaalidu ogaato maalin maalmaha kamid ah sheegay barnaamijka shargareeya shigshiga ayaan cabaar ka sheekayna kadib aan qodobada barnaamijka guda gali doona Soomaali igu ali kala qobqobnaasho waxay igu ali su'aasha kale intaan guda gali shargareeya barnaamijka kala qobsan yihiin dadka kala qobqobsan madaxweyne raalli ahow kala qobsan yihiin sama madaxweyne igu tahay sama ilaahay madaxweynaan ahay madaxweyne carabka adkee kala qobqobsan yihiin waa easy kala qobsan yihiin ajaib madaxweynaha dalka hadda ka hor ayaa la soo kaxeeyay waxaa la yiri